cabsidii allahu rabbulcaalamiin cabsidiisii markay inagu yaraatay ayaa dhacday dad badan oo muslimiina inay been iska sheegaan, inay wax walba ka shaqeeyaan, inay wax walba daawadaan, inay wax walba dhegaystaan, inay siday rabaan ay u socdaan. taasaa keentay markaas cabsidii ilaahay markay qalbigeenna ku yaraatay. qalbiga shaakirku waxa weeyaan waa qalbiga labada sifo xambaarsan bay culimmadu leeyihiin, alkhawfu waalrajaa. waa qalbiga ay ku jirto cabsida ilaahay baa qalbiga ku jirta, marna maaragtaane rajada ilaahay baa qalbiga ka buuxda, marna uu cabsoonayaa oo ilaahay qabashadiisu ka cabsanaya, ilaahay cuquubadiisu ka baqaya, ilaahay xisaabtiisu ka baqaya, ilaahay la kulankiisu kusii talagaluu ka baqaya. marna waa muumin weeyaano rajaaga qaalib waa rajaayo, naxariista ilaahay buu rajaynayaa, ilaahay jannadiisii buu rajaynayaa, ilaahay naxariis badana inuu yahay buu garanayaa, ilaahay dembidhaafe inuu yahay buu garanayaa. cabsidana qofka muslimka waxaa laga rabaa waa intanuu caafimaadka qabo weeyaan. rajadana waxaa laga rabaa waa markuu dhacu bukoodu xanuunsada laga rabaa inuu rajadu soo baxdo.